lixdii Maaj sanadkii tagay dil loo geystay Allaha u naxariistay baxsanay Cabdulla Boolay ayaa lagu soo eedeeyay wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja dilkaasi oo ka dhacay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir laakiin sanad kadib dilkaasi loo soo xiray ma qirsana Abuuja waxa uu soo daayay go'aanka maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay muwaadin Soomaaliyeed oo dalka u dhashay xaq ku leh xaqna lagu leeyahay waxaan filayaa in xaqayga maanta ay soo bixi doonto insha Allah taala maxkamadda kala saari doonto hadii dambiila ahay in dambigayga lagu qaado koob hadii nin la soo dulmiyay oo Ilaahay og yahay rasuulkiisa og yahay in dambiga lagu soo oogay oo been abuurka ah in maxkamadda xuruudeeda lix marqaati oo ay ku jiraan saraakiil amni goob joogayaal xilliga uu dilka dhacay ibaarihii kiiska ayaa si siman loo weydiiyay ogaalkooda kaalinta eedda loo haysta Abuuja midkoodna kama cadeyn garmaqalkan inay marqaati toos ah ka yihiin jiritaanka dambiga loo haysto Maxamed marka laga reebo hal marqaati oo ay jawaabihiisa isburinayeen gaashaan Laabukar Yuusuf Cabdi baaraha kiiska oo u jawaabay dhinacyada dacwadda ayaa u cuskaday cadeynta dambi in xilliyo kala duwan loo xiray tuhun al-shabaabnimo eedeysanaha iyo maragyada maxkamadda hortaagan baaris dheer sameeyay kadib waxa noo cadaatay in eedeysane Maxamed Cabdi Wahaab Abuuja uu yahay nin dambigaas galay geystayna dilka kana tirsan yahay ururka nabadeedka al-shabaab gaashaan Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda u sheegay in ay go'aan ku gaarto cadeymaha dambi muujin oo ay maxkamadda la yimaadeen xafiiska xeerlaalinta wuxuu cadeynaa maxkamadda horteeda inuu ayidsan yahay eedda uu soo gudbiyay oon eedeena waafaqsanahay innagoo u cuskanay maxkamadda markaatiga ee aan maxkamadda hor keenay ee maxkamaddu dhageysatay innagoo u cuskanayna dokumentiga oo ugu horeeyay warqadda cadeynaysa dhimashada marxuumadda oo maxkamadda u soo gudbinay innagoo u cuskanayna xogta ama khibradda ama yani ma taqaana halbareeraha oo maxkamadda horteeda ka cadeeyay baaraha dacwada maxkamadda intaas ayadoo dhageysatay waxaan maxkamadda ka codsanaynaa in go'aan cadaalad waafaqsan ay ka soo saarto qareenada u doodaya eedeysanaha ayaa maxkamadda la wadaagay khilaaf shakhsi ah oo kala dhaxeeyay hoggaanka amniga Shibis iyo eedeysanaha sidoo kale maxkamadda ay weydiisteen in aan loo ciqaabin ku tagrifal shakhsi oo ay ahayd in lagu ilaaliyo muwaadiniinta waa kan abukaata Ciise Warsame waxaan codsanayaa maadaama maanta aan halka kan la soo bandhigin wax cadaynaha yaraatee in Maxamed Cabdiwahaab Nuur laga sii deeyo eedaha xeer ilaalintu ku soo oogtay xuriyadiisana dib loogu soo celiyo qaran Daahir Maxamed Cali ayaa isna qabay in magdhow laga siiyo xorriyad ka qaadista eedeysanaha oo aan buuxin tilmaamaha qabasho ee qof loo haysan karo sidaas darteed mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja wuxuu xiray muddo wuxuu u xiraa tuhun uusan qabin maxkamadda horteedana ka cadaawaayay sidaas darteed waxaa maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in xurriyadiisa loo soo celiyo maxkamadduna ay sii dayso maxkamaddu waa maasantahay waxaan ka sugaynaa maxkamadda inay soo saarto go'aan cadaalada oo Abuuja ay ku sii daynayso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ururada warbaahinta madaxa bannaan oo gabagabada kiiskan dhageystayaalka ahaa iyo waalidka eedeysanaha ayaa iyana aragtidooda ka dhiibtay sida ay maxkamadda u wajahday gunaanadka kiiskan Cabdulla Muumin iyo Maxamed Cabdiwahaab ayaan weydiinay aragtidooda dhageysiga maxkamadda kadib go'aanka maxkamaddu inuu noqon doono mid cadaalad ah sida ay maxkamaddu ugu dadaashay in ay u dhageysato dhammaan dhinacyada waqtiga u siisay baaxadda leh iyo dulqaadka ixtiraamka ay u muujisay kiiskan ayaan sidoo kale rabnaa inaan ka mahad celino aad iyo aad mahadsantahay marka waxaan ku faraxsanahay dacwada sida u dhacday waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo gudoomiye shuuta aan ka rajaynaynaa in wariye Abuuja oo cadaaladiisi helo oo unan xurriyadiisa siiyo sida aan dareemaynana waxay u muuqatay si qurux badan oo cadeynaysa sida aan aaminsanayn inay wax u dhaceen inay dood u dhaceysay marka waa mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa go'aan fiican aabaha eedeysanaha ayaa isna la wadaagay dareenkiisa marka waxaan rajaynayaa in ay ka soo baxaan go'aan dhaxalgal ah oo ku salaysan cadaalad wax badan la yiraahdo cadaalad marka waxaan rajaynayaa maxkamadda aan ka rajaynayaa in wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur oo xirfadiisu xiran in uu helo
cadaalad. gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda. dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso. billahi tawfiiq. cabdiqaadir ciise, warbaahinta qaranka, Muqdisho.